dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta dareen mid ku qaabilay kula soo dhaweeyay dhismayaasha wadooyinka ee ka socda guud ahaan dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. dadkan oo telefishinka qaranka Soomaaliland maanta wax ka weydiinaya dareenkooda ayaa waxay tilmaameen in dhismaha wadada Ceeri Gaabo ee dhererkeedu dhan yahay 370 kiiloomitir ay tusaale u noqon doonto bay yiraahdeen horumarka iyo wax wada qabsiga ummadda reer Soomaaliland. waxay ugu hambalyeeyeen xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo qorshaha fiican ee u dejisay wadooyinka udubdhaxaad u ah bay yiraahdeen horumarka iyo horusocodka Soomaaliland. dadkan oo iskugu jiray dad caadi iyo kuwa mas'uuliyiin ahba ayaa waxa uu dareenkoodii ahaa sida tan. waxa muhiimad gaar ah jidka Ceeri Gaabo iyo Burco isku xidhaya oo ah halbowlihii runtii Soomaaliland oo karo waa wadada ugu qiimaha badan leh. waxa jira wadooyin badan oo waa la isku dayanaya waana runtii la tartamaya. waxaan leenahay tartankeena horumarka ha noqdo hadaynu reer Soomaaliland nahay. waana soo dhaweynaynaa cid allaale cid kasta oo arinta runtii wax ka qabanaysa. baan soo dhaweynaynaa wadada aad iyo aad wax qabadka ballaaran ee xukuumadda Soomaaliland ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ku tallaabsatay sida rag hore oo xalay wasiiraha oo sheegayay wadadu inay dhismayso insha Allah way dhismaysaa way dhameystirmaysaa sababtoo ay tahay gudaha iyo dibadba waanu gurmanay xukuumadda ugu horeysay ee wadooyinka aad horumarka wadooyinka aad baan u taageersanahay. Jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaanka golayaasha wasiirada samaynta wadada Ceeri Gaabo taas oo ah muddo ku baahan yahay oo muhiim ah oo ay noqotay meeshaas meel kala xiran diyaar u tahay waana wax loo baahnaa taas waxa aan ku ambaleynayaa madaxweynaha iyo ciddii kasta ee ka qayb qaadatay inay suurto gasho. waxa aan ku hambaleynayaa tallaabada geesinimada leh ee ku dhacale ee aan hore u dhicin ee aan weligeed balahaweysan ee uu qaaday aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa. waxaan kale oo waxaanu aad u bogaadinaynaa geesinimada ay muujisay xukuumadda maanta jirta oo wadadii dheerayd ee isku xirjitay Burco iyo Ceeri Gaabo ee laga baqanayay ay ku dhiiratay dhagax dhigtay. waxaan aanu soo jeedinaa in lagu darsado wadada Ceeri Gaabo ee isku xidha Togdheer iyo gobolka Sanaag isku xidha waa in lagu darsadaa muxuu ahaa wixii tabarucaada si ay u noqoto wadadaasi wadada available oo ay dadku u kala gooshi karaan. wadada Ceeri Gaabo waan ku soo dhaweynaa waan ku hambalyeynaa wixii taagtiyo tabarteedaan oo bixinaa hadaan nahay guddida ciyaar iskuulka way ka mid yihiin dariiqyadu. waxaan ku soo dhaweynaynaa hees cusub oo aanu kaga qayb gelin haddaan nahay kooxda walaalaha Togdheer ama walaalaha qaranka. heestaasi waxay ka bilaabmaysaa aayaha ubadkeena iyo arlada Soomaaliland inta ka mas'uul tihiin aqoontaan leenahay iyo itaalkeenu rabaa inaynu iskaashanay iskeen waxa loo qabsado dariiqa adeegu waa albaabada ganacsiga iyo ilaah laga taajirey burciyood weynayo aynu Ceeri Gaabo iyo isu furo Hargeysa adduunka u quurata. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Cawad waa maamulaha dugsiga Sheekh Ibraahim dugsiga hoose dhexe iyo sare Sheekh Ibraahim. saaka waxaanu ka qayb qaadanay annaga iyo ardaydayaduba wadada Ceeri Gaabo waxaanu kaga qayb noqonay oo aanu ku faraxsanahay waliba aanu diyaar u nahay inaanu mar dambana u holano haddii Ilaahay ka dhigo $3,500. Cabdi Sattar Sabri iyo Cabsaaq Farax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.